dadka qaar si kala laga inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaala waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sah ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way sal isu waafaqin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad bin jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabki laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo imanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad bin jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si uu isagoo hor imaanin diintu isagoo hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhibo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhahay ya is arkeen xuna kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkii wax ka soo sheega ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa wa tarakuuka la bishoogaysaa wa tarakuuka cook ma sheegaysaa magaci ninka ingiriisiga oo meesha ka soo saaray wa tarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yaani in la fahmo ma farna fil kitaab shay waxa loo jeedaa waa looxul mahfuudka wax ka soo sheega laakiin kitaabkeena quraanka fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran fiqiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hada kan faslun fasal waaye oo inoo qoray nawaaqidul wudu'i faraa'idul wudu'i mubdilatus salati wuu qoray minhaajka sheekha qoray wuu sharxay waa wax la qoray ogaada laakiin waxa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyay kitaabku wuxuu ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaraan ahayn wada midalan khamradu waa xaraan ribadu waa xaraan zinadu waa xaraan hadii dastuur la sameeyay inta la dhooyado adduunka maanta gaalaha haysatee bangiyada ribay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahna dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaal ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way banaantahay haday qaar dhahan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iska leh wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib laakiin ka waram hadaan dejisano qaanuunka la yiraahdo qaanuun tawdiif al-amal shaqada dadka sida loo siiyo waxay midalan wasaaradda meesha ay taala shaqaale inay qaadatay rabtaa hadii aan qaanuun loo sameeyay shaqaalaha lagu qaato waxa iimaanaysa qofkii maamulo looga dhigo wasaaraddaas inta ilma adeerka ay yihiin la inuu ku qoro shaqaala tahay adna shaqaala kulli wada shaqaala ka dhigo war sidaan maxay tahay maxay ahaan lahayd wasiirka maxaa 4.5 soo lagu qaybsan wasaaradda annaga iska leh war sidaas ma aha wasaarad ummaday ka dhaxaysa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaynaa
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسر الله مرة هذا مثلا جد كان هرتين مرة أفجوي هذا بابور تمرك أي مرايان لبوا دناعي كلام مران كي أفجوي وصعد دنك ميدك تو مرة كأفجوي كي معضينا دنك بدح ذو مرة وإسقرب صعدان مركب haddii maalan ku afgooyo u socdo intuu ka baxo dhinaca midigta ah oo dhinaca kale uu maro dadkoo dhan maxay dhahayaan hadda waa iskala qabsanay waa iska maraa ma ogiye laakiin maxaa leeyahay baabuurkaas sharci darro ayuu wadada ku maraaya oo seedkiisii ama dhinaciisii ma ah haddii taraafikadu ay qabato maxay dhahayaan mukhaalafu ku jira wuxuu khilaafay qaanuunkii oo wadada lagu mari lahaa ganaaxa laga qaadaya hadda tiraado qofkan 100,000 oo shilin Soomaaliya laga qaaday maxaa looga qaaday aayadee looga qaaday hadda tiraahdo aayad ganaax sheegaysa oo ku dhahaysa 100,000 laga qaado qofkii jidka afgooy asagoo dhinacii kale ka maraaya dhahaya ma helaysid xadiidna ma helaysid laakiin haddaan saa loo nidaaminin shilalka baabuurta iyo isku dhacaya badanaya saas daraadeed wixii macnaha dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan nabigu wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri dunyaakum adduunyada saa u dhaqanaysan idinka taqaanaan laakiin waxaan la ogolayn wax shariicada khilaafsan hadda inaga Soomaali hadaan nahay burburkii kadib wax un dawlad la isku soo yara aadiyo waxa laga soo bilaabaa 2000 shirkii carta waxa qaban qaabi oo ogtiin Soomaalida ayaama taariikhda maxay ku fiicneen ma ogiye waxa qaban qaabi dad bulsho rayid ah oo culimo ay hogaaminayaan oo hogaami kooxeedyadii xilligaas jiray qayb kama ayna ahayn waxa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii culimadii waa shirkii carta waa ogtiin soo ku dhacay markii la qoraayay dastuurka waxa lagu qoray oo ilaa hadaba ku taala ay qaanuun yukhalifu shariica al-islaamiyya yu'tabaru baatilan qodob kasta oo shariicada islaamka ka hor imaanaya waa wax kama jiraan yaa marka Soomaali shariicadu waxaan yaa ku xukumi kara ka ugu faasiqsan hadii la keeno bulshada ayuu og yahay inay shariicada ogoshahay hadii su'aal la weydiiyo leedahay wadanka maxaad ku xukumaysaa hadda waa faasiq hadda la og yahay oo Mooryaana muxuu dhahayaa shariicada wala ma taabtaan shariicada lagu xukumaaya meeshaas fiir wala soo gaarsiyo mas'uul soo gaarsiyo in la fuliyo la dhiman ee dadka fikir ahaan dadkoo dhan waxa laga dhaadhiciyay shariicada islaamka muslimaan nahay wax kale oo anfacaya ma jiro ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wuxuu ilaahay soo dejiyay raaca wuxuu ilaahay soo dejiyay wixii sidaas loo sheegay oo xalaal iyo xaaraan iyo ku saabsan waa sidaas wixii nidaamin iyo ku saabsan xagee la maraa iyo beeraha see loo qotaa iyo jawiga see diyaaradaha loo kala hagaayo baabuurtu say ku kala socdaan iyo see shaqada markii dadka la siinayo loo kala nidaamiyaa iyo intaas waa la inoo ogol yahay intaas markaan ka soo gudubno oo dastuurnimada mushkil ma leh waxa lagu qoray baa la fiirinayaa ay noqoto hal arrin oo waxa inoo soo hartay hal mas'ala oo lagu baabacay oo meesha Soomaaliya ay dhahdaan faraha looga gubtay ayaa ayadana jirta arrintaasi culays weyn ee dadka ku haysa oo ah يعني دولة نمتك Soomaaliya hadaan nahay dawlad nimadkeenu way cusub tahay oo madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen aadan cad Allahu naxariisay mar dhaw ayuu dhintay waa madaxweynihii ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalkii inta laga soo imaaday iyo waqti dheer ma in badanna fawda ayaan ku jirnay waxa mushkil inagu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wuxuu ahaa shariicada aan ku toosnayn maxaa yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ayna ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaal ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshun baa laga sii waday markii la soo qaado yani shariicadiiba ayadoo hirgashay oo lagu dhaqmayba maynan arag waa uu la isiryanay waa uu la isbuursanay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillah dadku mayna arag waxay soo arki jireen bay ahayd waxa la arkay marka caalamka kale markaad fiirisid iyo inaga markaad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqantaa su'aal la isweydiinaa haye maxay xukuntaa markaas waxa la midaan mashruuca xukuntaa mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aala meesha ani baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u sahlan marka oo fudud aayadii hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan waxooga kor istaagayna aayada koobaad wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul kaafiruun yani qofkii xukumi waa wuxuu ilaahay soo dajiyay fa ulaa'ika humul kaafiruun waa gaalo aayada kale maxay leedahay fa ulaa'ika humul zaalimuun fa ulaa'ika humul faasiquun saddex aayado isdaba yaala Soomaa
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kuma ayna dhammaanin midna waxay ku dhammaatay kaafiruun mid waxay ku dhammaatay dhaalimuun midna waxay ku dhammaatay faasiquun halkaana su'aal ka imaatay marka